الدنيا الحبور ثم قالت للحضور ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قبلت زواجها waxaan kuu guuriyey aadan saciid wasame inanta saade axmed cabdiraxmaan wuu ii wakiishay walaalkeed muxamed axmed cabdiraxmaan waxaan kugu meheriyey kitaabka alle iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo inantaasi inaad si wanaagsan ku dhaqdo meherkeedana uu yahay $3,000 ma aqbashay halkaas waxaa inoogu dhacay guurkii iyo zawaajku inoogu dhacay waxaan leenahay baaraka allahu lakuma wa baaraka calaykumaa wa jamaca baynakuma bikhayr.